waa group asxaab ah oo ku caawinaya maqaayadan. Gabadhan ayaa waxay oranaysaa waxa soo baxa application qofka uu sheegaya xilliga uu dhimanayo. Qof kastoo inaga midana waa inuu soo degsadaa. Kan noogu waqtiga yaraadana waxa aynu ku amri doonaa inuu cabo galaasada sharaabka ee miiska saaran oo dhan. Gabadhan waa ay diidaysaa, laakiin markii dambe way aqbashay. Waxayna la soo degayaan application-ka. Gabadhii bilowday ayaa ugu horfirinaysa waxaana leedahay 63 sano ayaa ii haray, halka gabadhan kale ay leedahay iyaduna 32 sano. Dhammaantood waa ay wada fiirinayaan marka laga reebo gabadhan. Gabadhan markii ay fiirisay aad ayay u naxday. Waxayna aragtay inay u harsan tahay kaliya 3 saacadood. Waa ay wada farxayaan dhammaantood. Kadibna sharaabadii miiska saarnaa oo dhan ayay u soo dhaweynayaan. Waxayna leeyihiin arrintan ha u qaadan wax serious ah. Kaliya waa challenge iyo game. Boyfriend-keedu ag taagan ayaa ku oranaya, ha isdhiibin aniga ayaa ka cabaya waxaan oo dhan. Gabadhan aad ayay ugu farxaysaa maadaama uu saaxiibkeed ka badbaadiyay. Gaariga ayay ku sugaysaa saaxiibkeed, laakiin saaxiibkeedu waa mid dhacaya mana wadi karo gaariga. Wixii khamri miiska yaalay oo dhan ayuu cabay. Gurigeedii ayuu keenay. Aad ayay u murugaysan tahay gabadhan waxayna fiirinaysaa telefoonkii oo notification u soo diray. Waxayna eegtay inay u dhiman tahay kaliya 7 daqiiqo. Aad ayay u murugaysan tahay maadaama 7 daqiiqo ay ka dhiman tahay nolosheedii. Way soo cararaysaa waxayna soo galaysaa guriga. Waxay isku dayaysaa inay telefoonka baktiso. Telefoonkii ayay baktinaysaa. Kadibna waxay soo galaysaa suuliga. Waa ay ka soo laabanaysaa suuliga waxaana isku dayaysaa inay telefoonkeedii fiiriso. Laakiin waxa uu harayo kaliya waa 9 second. Iyadoo barteedii taagan ayaa xagga sare loo qaaday. Kadibna waxa lagu soo celiyay dhulkii. Halkaas ayayna ku geeriyootay. Waxa ayna geeriyootay second-kii ugu dambeeyay. Saaxiibkeedu cabsanna waxa uu galay shil gaari. Kadib markii uu gaariga ku dhuftay geedkan, dhiig badan ayaana ka socda. Cusbitaalka ayaa la keenay. Gabadhan ayaa wareysanaysa oo lagu magacaabo Queen. Waxa uu u sheegayaa inay ka dhiman tahay 19 saacadood oo kaliya. Qalliinkana uusan ka gaarin. Cusbitaalkana uu ku dhiman doono. Waxay ku leedahay isdaji. Waxani maaha wax runaya waa application. Queen way soo baxaysaa waxayna u imaanaysaa saaxiibadeed waxayna u sheegaysaa wixii ay soo aragtay. Dhammaantood waxay isla soo degayaan application-kii. Waa ayna fiirinayaan. Markii ay shaqada ka soo baxday Queen waxay la soo degtay application-kii. Waxa uu noo soo saaray inay ka dhiman tahay 4 beri oo kaliya. Raf waa uu soo dhaqaaqay waxa uu ka arkayaa muraayada wax gadaashiisa taagan. Kadibna waxa uu fiirinayaa muraayadii. Hal mar ayaa muraayadii lagu soo boodaya wayna jabaysaa. Raf waa uu cararayaa wuxuu isku dayayaa inuu xagga sare koro. Laakiin cusbitaalkii oo dhan ayaa waxa ka tagtay korontadii. Telefoonka ayaa u soo dhacay kaliya waxa uu dhiman 1 daqiiqo. Waxa uu isku dayayaa inuu albaabkan ka baxo, laakiin albaabka ayaa u furmooynaya. Kadibna waxa uu flaashkiisa ku arkay qof hor taagan. Waxa uu isku dayayaa inuu ka cararo. Halkaas ayuuna ku geeriyooday. Waxa uuna dhintay second-kii ugu dambeeyay ee uu haray. Queen subaxnimada ayay shaqada soo gashay. Kadibna waxa loo sheegay inuu geeriyooday Raf. Telefoonkiisa ayay soo qaaday waxaana isku dayaysaa inay furto, laakiin log ayaa ku xiran. Waa ay soo dhaqaaqday waxaana timi qolkii meydka ilaa meydkiisii ay fayday. Kadibna ay sulka u saartay telefoonkii, laakiin waa uu furmooynayaa ilaa marka dambe ay indhaha kala furto. Kadibna ay ugu qabato telefoonka. Telefoonka ayaa furmay waxayna arkaysaa in second-kii ugu dambeeyay uu geeriyooday. Telefoonka ayay tuuraysaa wayna isku naxaysaa ilaa meydkii ay bartiisa ku celiso. Queen waa ay walwalsan tahay waxayna aaminsan tahay in iyaduna geeriyoonayso. Familkeeda ayay la hadlaysaa wayna dardaarmaysaa. Waxayna aamintay inay geeriyoonayso. Guriga ayay timi laptopkeeda ayay furtay. Newska ayay ka fiirinaysaa application-ka inuu yahay application xaqiiqo ah. Laakiin waxay arkaysaa dhammaan dadkii u geeriyooday ilaa aragto muuqaaladii ugu dambeeyay dadku iska duubeen ka hor inta aysan dhiman. Queen telefoonka ayay jajabinaysaa wayna ku istaagaysaa. Gaarigeeda ayay soo qaadanaysaa waxaana imaanaysaa dukaanka lagu iibiyo telefoonada si telefoon cusub ay u qaadato. Ninkan ayaa u dhiibaya telefoon cusub. Kadibna waa ay daaraysaa. Telefoonka ayay ka gadanaysaa. Kadibna waxay tagtay gurigeedii waxayna aragtay notification u soo dhacay. Welina application-kii waa ugu jiraa telefoonkii cusbaa. Waa ay soo laabanaysaa ninkii dukaanka ayay ku soo laabanaysaa waxa ay leedahay application-ka niga delete garay. Wuxuu isku dayay inuu application-kii saaro. Telefoonka ayay ka qaadaysaa wayna ka soo tagaysaa. Wiilkan oo lagu magacaabo Jordan ayaa u imaanaya waxa uu tusayaa inay isagana u harsan tahay maalin kaliya. Maqaayadan ayay imaanayaan. Waa ayna tashanayaan sida ay ku badbaadi lahaayeen. Waxa uu ku leeyahay waa inaan tagnaa kaniisadda. Waxaana jooga nin sixiroola ah oo shaydaanka la shaqeeya. Kaniisadda ayay yimaadeen. Kadibna waxa uu soo galeen gudaha. Ninkii sixirolaha ayay la kulmeen. Waxa ayna u sheegayaan xaaladda haysata. Kadibna waxa uu isku dayayaa inuu xaaladoodii xalliyo. Waxa uu ku oranayaa istajiya. Ma dhiman doontaan. Aniga ayaa idin badbaadin doona. Laakiin hadalkiisa ma rumaysanayaan. Waxayna u arkaan qosol iyo funny. Queen iyo Jordan way ka soo tagayaan waxayna dib ugu soo laabanayaan dukaankii. Ninkii dukaanka ayay u yeerayaan laakiin waxa uu leeyahay dukaankii waa xiray. Ilaa marka dambe ay dhahaan lacag ayaan ku siinaynaa ee waxaan rabnaa noo sameey. Dukaanka ayuu u furayaa kadibna waxa ay leeyihiin application-kan waxaan rabnaa inaad naga delete garaysid. Waxayna rabaan in application-ka telefoonadooda laga saaro. Laakiin waxa uu sheegayaa inuusan awoodi karin taa. Taa beddelkeedna uu samayn doono inuu system-ka oo dhan khalkhaliyo.
kadibna uu uga dhigo 80 sano xilliga ay dhimanayaan. Ninkana waxa ku guuleystay in application-kii uu khalkhaliyo waa ay farxayaan markii looga dhigo 80 sano xilliga ay dhimanayaan. Dukaanka ayay ka soo baxayaan Jordan iyo Queen. Jordan waxa uu ku leeyahay Queen, anigu ma aaminsanin in arrintaas ay dhici karto. Mar labaad ayay kaniisadda ku soo laabanayaan. ninkii sixroolaha ayaa waxa uu ku oranayaa waxaan idin samayn doonaa wax kasta oo aan idinku badbaadin doono xilliga dhimashadoodana waxa ka dhiman kaliya wax ka yar saacad. ninkii sixroolaha wuxuu soo qaadanaya ranjigan kadibna waxa uu samaynayaa calaamadda shaydaanka. calaamadii ayay dhex istaagayaan dhammaantood kadibna waxa imaanaya shaydaankii leerarkii kaniisadda oo dhan ayaa damaya. Jordan ayaa hal mar waxa uu arkayaa wiilkan yarka ee hortaagan laakiin waa uu islaaway hal tallaabo ayuuna ka soo baxay calaamadii. dhammaantood waa ay kala cararayaan waxayna ka cararayaan shaydaankii. Queen waxay ka soo baxaysaa godkan hal mar ayaa waxa soo ordaya baabuurkan kadibna waxa uu dusha ka maraya Jordan halkaas ayuu ku geeriyooday. Queen waxay arkaysaa walaasheeda dhaawac ah waxayna keenaysaa cusbitaalka. isdaji ayay leedahay waana caafimaadaysaa. TV-ga ayay ka arkaysaa newska Jordan iyo sida uu geeriyooday. Queen waxay arkaysaa dhakhtarkan walaasheed daaweynaya kadibna waxa ku soo dhacaysa fikrad haday uu sheegay ninkii sixroolaha waxa uu ku yiri laba option ayaa ku badbaadi doontaan. optionka koowaad ayaa ahaa kii uu ugu sameeyay calaamadda si ay uga badbaadaan shaydaanka iyo in labadooda mid ka mid ah ay qof nafta dhaafiyaan inta aan la gaarin saacada iyagu dhimanayaan. Queen waxay isku dayaysaa inay la sheekaysato dhakhtarkii waxayna ku sameynaysaa qaab soo jiidasho ah laakiin dhakhtarkii waxa uu ku leeyahay xagga sare ayaan isla tegaynaa halkan suurtagal ma aha inaan hawsheena ku dhamaysano. xagga sare ayay aadayaan kadibna dhakhtarkii oo raadinaya Queen ayay hal mar gadaal ka soo maraysaa waxayna isku dayaysaa inay birtan ku dhufato laakiin waa ay la weynaysaa. waa uu ka cararayaa ilaa markii dambe ay qabato kadibna waxay arkaysaa si lama filaan ah dhakhtarkii oo gadaal loo jiitay. birteeda ayay soo qaadanaysaa waxayna raadinaysaa dhakhtarkii. walaasheed ayaa qaylinaysa waxayna arkaysaa in hal daqiiqo wax ka yar ay u dhiman tahay. dhakhtarkii ayaa hal mar ku soo boodaya kadibna waxa uu ku dhufanayaa feer dhulka ayay ku dhacaysaa kadibna wuxuu isku dayayaa inuu birtan ku dhufto gadaal ayay ka soo maraysaa waxayna ku dhufanaysaa bir laakiin way la weynaysaa mar kale. halkana waxaa jooga shaydaankii maadaama waqtigoodii la gaaray. Queen hal mar ayaa cagaha dhulka looga qaaday mana arkayso cidda la dagaalamaysa dhakhtarkiina waa uu ka baxsaday. walaasheed ayaa halkan ooyaysa waxna arkaysaa inay u dhiman tahay wax ka yar hal daqiiqo. Queen waxay samaynaysaa fikrad cajiib ah sanduuqan ayay kala soo baxaysaa daawada la isku suuxiyo kadibna ilbadii ayay isku dhufanaysaa ka hor inta aysan dhiman. waxaana u haray wax ka yar 11 second. shaydaanka ayaa u imaanaya kadibna waxa uu qaadayaa xagga sare laakiin waa awoodi waayaya maadaama qofkan uusan ahayn qof miyirkiisu joogo. shaydaankina waa isaga tagayaa kadibna waxa uu imaanaysaa gabadhii yareed ee walaasheed ahayd waxayna arkaysaa in lugteeda ay ku qortay irbadda mar labaad igu dhufo. ilbadii ayay ku dhufanaysaa walaasheedna waa ay u soo naaxaysaa halkaas ayayna ku badbaaday. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. fadlan muuqaalka like saar haddii aad ku cusub tahay barteena YouTube-kana subscribe noo saar. waa ku mahadsantihiin mar labaad daawashadiina.